Minguistu haile hogaamiyihii dergigii Itoobiya oo muddo ku noolaa dalka Zimbabwe ayaa la filayaa inuu dhaqso u soo galo dalka Itoobiya kadib codsi uga yimid ra'iisul wasaare Abiy Ahmed. Minguistu haile ayaa lagu xasuustaa dilkii boqor Haile Selassie oo ku aasay xafiiskiisa hoostiisa lafihiisina laga soo guray. waxa kale oo lagu xasuustaa gaajadii uu ku eegay dadka Itoobiya oo malaayiin qof ay u leedeen. waxa kale oo lagu xasuustaa abaabulka dagaaladii qowmiyadaha Itoobiya. waxa kale oo lagu xasuustaa dagaaladii 7/7 ee uu la galay dawladii weyneed ee Soomaaliya oo markii dambe lagu dumiyay. waxa kale oo lagu xasuustaa sameyntii jabhadaha qaabka qabiilo abaabulnaa ugu dambeyntii dhalisay dagaalkii sokeeye ee Soomaaliya. Abiy Ahmed ayaa rabay inuu uga faa'iideysto Minguistu haile inuu mideeyo qowmiyadaha uraagada xabashada iyo oromada, inkastoo saraakiisha Tigreega ay ku dhaarteen inay dilayaan hadduu soo galo dalka Itoobiya. waxa kale oo socda qorshe shaydaan oo la rabo in deganaansho la'aan looga abuuro dalka Jamhuuriyadda Jabuuti si loo qaato dekedaha Oboq iyo Tujura loona xalaalaysto badroolka ummadda Soomaaliyeed ee zoonka shanaad.